ولها شركة إسقاسين تلسوم قبلدان أوضل يسلل حاج عبد القادر آدم نور أيام ما أنت ديق لعقاد أو وكيل كاها وحا وكوريجيي وذي كوحنوسان يبور ما أولغو مقعابو حسن إبراهيم بلاء برالي أو تدواتين جرأة وحونا كهالي مضاشي أو ديق ذان لعقاد كوريجينيي dhibaato badan ay haysatay xasan waani runtii kalidii ku nool qol wax xasan uu maadartay uu dhalay oo awlaad uu leeyahay ma jirto runtii dad ay walaalayhiin oo wada dhasheenna ma jiraan marka runtii xasan dhibaatada haysatay wad ka wada dharigsantiin walaalkeen Cali Bashiir oo ra'iis Switzerland ah ayaa u soo diray lacag $150 lacagtii waxaan labaan u qaybinay bad waxaanu runtii meel u saxlaa waxaan u iibinay kuwa agarkiisii iyo bustaha wixii kale ee runtii u soo harayna gacantan kaga ridaynaa si uu nafaqo oo runtii uga dhigto walaalkeen Sheekh Maxamed Shiine ayaa $200 oo soo diray muddo dhexdeeda $200 waan haynay iyadoo la sugeynay lacag kale oo runtii tabarucaad iyagana dibadda ka sugeynay lacagtaasoo loogu talagalay in walaalkeen oo dhibaataysan oo la yiraahdo Cabdikariin Umar Warsame lacag $200 oo sheekhu u soo diray ninkaasoo runtii ay ka soo baxeen maada namuro dhibaataysan ayaa waxaan insha Allah gudbin doonaa walaalkeen guray waxa kale oo yidna jirta islaanta kuman maadartay ومن لا يراهو وإسلام إسنا تواليسان هاي إيادنا أي قروا بسين إسلام تانا حبلها رنتي عاكتا وانهيني عاكتا وانا سجيني حبلها ما دركتي تشوف سعودة عربية رياض أي الله $100 صدري وعلى كان ما تقول علينا يا ولا راح يقال لعها صدري أسوق الدليل تذكر تواليسان مامل عبد القادر ما كنت قدومي لا أبغى وحنا قدومي عبد الكريم لا أبغى وحنا قدومي قوم من قيداله وحلاه ولا راح صدري سعودي iyo Ingiriis ka soo kala diray waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro maanta qiyaamaha iniga ayaa iska leh Abdi Fattah Ahmed Somali Channel magaalada Boorama xarun cusub oo loogu magac daray ujeedada badanta dhalinyarada oo ay maal geliso dawladda Japan ayaa laga furay magaalada Boorama sida uu faahfaahinta warkan mar kale uu ku eegayo wariyahayaga Abdi Fattah Ahmed magaalada Boorama waxaa maanta laga furay xarun cusub oo loogu magac daray xarunta ujeedada badanka dhalinyarada waxaana maalgelisay xaruntan dawladda Japan isla markaana waxay dawladdaasi Japan dhaqaalaha u soo marisay hay'adda UNICEF waxaana fulinaysa ururka wadaniga ah ee Ayoda ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal waxaana madashan ugu horeen ka hadlay agaasimaha fulinta ee ururka wadaniga ee Ayoda Siyaad Umar Ali wuxuuna faahfaahiyay ujeedada xaruntan iyo waxyaabaha ay qaban doonto waxaa maalgelisay the people of Japan baa noo maalgelisay waxay noo manage garaysay UNICEF waxaana markaa dhulkan laga dhisay annaga dowlad galeena yani xarumahan markii la sameeyay in laga dhiso dhulka gobolkeena waa la yimiday yani xarun dhalinyartii u dhow markii loo baahday waxay ahayd waqtigaasi hadda 3 sano horteed markii meeshii loo baahday space loo baahan yahay space-kan oo iibsanay oo markii lagu taagay lacag ka badan $16,500 أنا قلت لك لأن الحروف السماء عنها فبسمع وجوه ساري اليوم يبدأ كمان سنين يعني لبسان فهنا تبدأ جدا بقول لك السيد ما تقدر بس أنت كمان تفرج ولا بس agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ee Somaliland Mustafa Maxamuud Qodax oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xaruntan loogu magac daray ujeedada badanka dhalinyarada maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile iyo gudoomiyaha gobolkan Axmed Xadi Sidci oo iyaguna madashan hadalay ka jeediyay ayaa waxay taageereen furitaanka xaruntan iyagoo hoosta ka xariiqay inay xaruntan dhalinyarada ka badbaadinayso balwadaha isla markaana ku dhiirigelinayso inay shaqooyin abuurtaan marka ciyaaraha waa markaaga ay lagu daro haddii tiimkiisahay qorsheeyadu ay ka mid yihiin inay basketball ka sameeyaan meesha noloshii waxa weeyaan inta halkan taala intii nolosha ka baysay oo dhan iyo halkan taala inaad barataan xirfad aad naftaada iyo reerkaaga iyo reerkiina ugu xoogsan karto تطلق على طبيس إلى جمع وسكرتين البرتان وحيدين سنتين من برشلة حرفضان عبد الفتاح أحمد Somali Channel magaalada Boorama